waxaan maanta booqasho uu nagu wehelinayo Qaasim Salaad iyo aabihiis ku tagnay iskoolka Amiir Nuur Secondary School Garbaharey oo uu ka qalin jabiyay Qaasim oon sheekadiisa noloshii adkayd oo wax ku soo bartay aan horay idin la wadaagnay warbaahintuna ay si weyn uga faalootay aabaha dhalay Qaasim oo warbaahinta gudaha kula hadlay iskoolka ayaa u mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta dulqaadkii iyo dadaalkii ay wax ku bareen wiilkiisa aan oo Salaad Gabood aha Qaasim Salaad Gabood aabihiis maanta waxa boqosho imaanay iskoolka Amiir Nuur waa u mahad celinaya boqolkiiba waa u mahad celinaya macallimiinta u mahad celinaya maamulaha u mahad celinaya ardada oo iskoolkaas dhamaaytay usbuuc u mahad celinaya ardada Soomaaliyeed oo waxbarashada iskoolaad ka baxday dhoo u mahad celinaya Soomaali dhoo u mahad celinaya wasiirka waxbarashada u mahad celinaya muslimiinta dhoo u mahad celinaya maanta Qaasim Salaad Gabood aabihiis oo Amiir Nuur booqanay alxamdulillah intii ilaahay oo ku toogni waa joogna aadin waa xaleena ka badan Qaasim oo anaga oo alyoonle ku shaqaysanay Bruce Imensher alxamdulillah la ya laba unug oo shan unug iskuulii dhigta hadda laba unug alxamdulillah sanadkan waa dhinaca kale maamulaha iskoolka Amiir Nuur Secondary School Garbaharey ayaa ka warbixiyay Qaasim oo daruufo adag wax ku soo bartay sida uu uga mid noqday boqolaalkii arday ee kaalmaha sare ka galay imtixaanka qaranka midkii 2016 2013 afar sano ayuu fadhiyay form 1 form 2 form 3 iyo form 4 soo akhristay nidaamka saxda ah ayuu soo maray Qaasim arday dadaal badan buu ahaa aad u dadaal badan meesha ay degan yihiin iskoolku ay ka dheereed kambi la yiraahdo Tawfiiq oo kambi qaxooti ah buu ku noolaa halkaas degnaayeen abaar u jirto magaalada iyo kambigaas waxa u dhaxeeyo tog weyn baa u dhaxeeyo togaas meel fog buu biyaha ka keenaa biyaas ayuu keeno marka qaarkood laba bari saddex bari ayay socdaan Qaasim duruufo adag ayuu wax ku soo bartay ognahay anaga macrifo ka nahay oo marqaati aan kana ayuu ku soo wax bartay Qaasim Salaad Gabood nin dadaal badan buu ahaa aad u dadaal badan buu ahaa dadaalkiisa anaga nidaamka anaga iskoolku waa iskoolku aad baan culays u saarnaa culayskaasi ardayda iyo barayaashii baa ka kor dhacaa dadaal markaas meeshaas miro waxa ka soo baxo miro wax gal ah arday wax gal ah ka soo baxdo iskoolku waxa la soo xadooraa la yimaada 12 barkii Qaasimna reerkooda iyo iskoolka ama tuulada kambiga iyo iskoolka waxa u dhaxaysay distance dheer oo almost 1 kilometer iyo bar ah ayaa u dhaxaysay marka meeshaas fog iyo asagoo laga rabo in aroorta hore oo waqtiga hore ah oo imaada waxay ahayd cilad aad u weyn oo haysato iyo dhibaato anagana markii dambe oo macrifeysanay ardayga meeshu ka imaanayo waa u dhinnay oo ka dhinnay oo waqtiyaadkii ardayda imaan jireen ma ahe waqti ka bedelan inuu yimaado yaasina maxaa yeelay ardayda subax hore waxay galaan akhris previs waxa la yiraahday galaan 12 iyo 40 previs ka bilowda 12 iyo 20 hal saac iyo 20na waxa u bilowday casharaadkii baa u bilowday marka Qaasim meesha ayad uu ka soo kalihi jiray waqtigii aan fahanay in uu meel dheer ka imaaday isla markiiba sanadii ugu horeysay cidiisana reerkana reer qaxoontiya iska yahay duruuf adag ku jiro waa u jilcinay oo garab raacinay waqtigii ardayda kale imaan jireen waqti aan ahayn ayuu imaan jiray Qaasim reerkoodu maysan awoodin inay iska bixiyaan school fee inay iska bixiyaan maysan awoodin waqtiyaadkii hore bilowgii iskoolku dawladdu macallimiinta joogo waa 14 macallin dawladda boqolkiiba 10 ay wax ka gashaa dhinaca macallimiinta boqolkiiba 10 ay wax ka gashaa marka taageeraha dhinaca macallimiinta imtixaanka qaranka Qaasim Salaad Gabood ayaa si dareen leh ugu mahad celiyay bulshadii Soomaaliyeed ee daruuftiisa ka murugootay iyo macallimiintii dadaalka ku bixiyay guushiisa aad iyo aad ayaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad
waxaa kaloo mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda mudane cabdulaahi goodax bare sida uu hadda waarteen dad badan arkaa mana videogii lasoo duubay kaloo lasoo duubay aad iyo dadkii daawaday oo hoogaa oo arkay aad iyo aad ayaad ugu mahadnaqayaa sidaas iskafsigaanba aad waa mahadsantihiin sidaa u daawateen maasha allah. waxaan wasiirka wasaaradda waxbarashada aad iyo aad ayaa u mahadnaqayaa isagoo ii ballan qaaday in jaamacad free aan helo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. sidoo kale hambalyoon leeyahay ummad Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u hambalyeynaa inay sidaan iska kasii fiican hore u sii wadaan. waxaa kaloo ardayda Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay dadaalkooda sii wadaan oo waxbarashada aan ka caajisin taasoo haddana waxbarashada aad ay u fiican tahay. waxbarashada waa nolosha iftiinka nolosha aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaan kaloo si gaar u mahadcelinayaa warbaahintii baahisay videogeyga warbaahinta Shabeelle aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa khaasatan wariyihii soo duubay videoga oo taagnoodka mudane Galwaaqa aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa taas si gaar ah u mahadcelinayaa Galwaaqa nolow leeyahay intaas ma doonayna hadalsi mawlid jaamac farax mawlid galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo.